kuhusu askari kusabsan yahay. Nipe ID yangu, si ID-gayga. Umeangalia tayari, mar hore waa fiirisay ama umeshaangalia mar hore fiirisay. Imeandikwa kwa kitambulisho. Jina yangu imeandikwa kwa kitambulisho. Magacaygu wuxuu ku qoran yahay kibandaha. Wacha kunisumbua afande, dibkayga dhaaf fadlan taliya. Niambie hiyo block inashikana. Niambie hiyo block, ishak bloggers unaishi aad ku nooshahay inashikana blog gani, blogge ayuu ku dhagan yahay. Because markaad meeshaas hebel ka imaado Buulamadina dhahdo, blogge ku dhagan lagu dhihi. Inashikana blog gani, blogge ku dhagan yahay. Waxa la unaishi blog gani, blogge ku nooshahay. Ninaishi Bulasagara, Bulasagara ku noolahay. Hawa hawajafika alien, dadka la markaa badbaadinaysid. Hawa hawajafika alien, kuwan maysan gaarin alien. Hawa hawajafika ID alada, kuwan ID maysan gaarin. taasna ku talagal qof sharci la'aan. Wakona karatasi waxay haystaan waraaq wanatumia alien moja, waxay isticmaalayaan hal alien. Ayaga dhan waa wada jamac ayaga. Akona karatasi ya sheria, isaga wuxuu haystaa waraaqa sharciyeysan ama iyadu waxay haystaa waraaqa sharciyeysan. 12 nikona ID waxaan haystaa sharci ID 13. Yeye ni Mkenya, isaga waa Kenyan, lakini hakupata fursa ya kujifunza Kiswahili, lakini fursad uu Swahili ku barta muusan helin. 14 alilewa ushago, wuxuu ku soo karay ushago baadiyaha. Mimi sikupata, ani ma helin markaan la isdifaacayo. Mimi sikupata fursa ya kujua Kiswahili, anigu ma helin fursad aan Swahili ku barto. Si lazima kila mtu ajue Kiswahili, qasab maaha ama lazim maaha qof kasta Swahili yaqaano. Usiniharibie customer-ka iga haleynin. Usiniharibie jina, magaca iga haleynin. Usiniaibishe mbele ya watu, dadka hortooda ha igu ceebeynin. Niwachie sida. Qaybta labaad askarta, kwa nini hajafika muxuusan u gaarin? Na huyu ni mtu kubwa, qofkan waa qof weyn be, marka qof kala wada waay. Mwili yake jirkiisa ni kubwa, weyn yahay, jirkiisa weynaada bisle. Mwili waa jirya. Yeye ama laftiisa booday Soomaali iska dhahan. Yeye ni mdogo, isaga uu yar yahay. Hajafika alien ama hajafika ID muusan gaarin. Huyu ni mtoto, kani waa cunug yar. Akona miaka ngapi? Miaka jir waa lagu weydiinaya marka. Akona miaka 17 waa 17 sano jir, ama akona miaka 17 16 waxa la dhigi kartaa. Angalia kuwa alien yake, ka fiiri alienkiisa. Mimi nimeambiwa, ani waxa la ii sheegay hajafika ID inuusan gaarin sharci. Mimi sijui miaka yake, anigu garan maayo da'diisa. Afande, angalia sheria ya watu haraka tafadhali. Fadlan taliya dadka sharciyadooda dhaqso fiiri. Ninachelewa mahali, meel baa ka daahsanahay. Ninabeba watu mahali, nataka kubeba watu mahali ingine. Nataka kubeba watu mahali, nataka kubeba waxaa rabaa inaan soo qaado watu dad mahali ingine, meel kale dad kale laga soo qaada rabaa. Mimi nimebeba mboga tu, ani waxaan wadaa khudaar kaliya. Usinicheleweshe tafadhali, ha idaahinin. Mboga itaharibika nikichelewa. Khudaartu way halaabaysaa haddaan daaho. Nikichelewa haddaan daaho sitapata soko. Haddaan daaho suuq ma helayo. Magari ingine ikifika mbele yangu, haddii gaariyaasha kale iga hortagaan, hakuna mtu atanunua. Qof iga gadanaya ma leh. Na itaharibika mboga, khudaartan way halaabaysaa. Swahili maneno mapya, Swahili eraya cusub. Leo maanta, kesho berito, kesho kutwa beri dambe, jana shalay, juzi darat. Jana shalay, juzi darat. Wiki isbuuc, mwezi bil, mwaka sanad, asubuhi subax, jioni galab ama fid, mchana maalin ama dhuhur. Dhuhurin waa lahaa, usiku habeen, tarehe taariikh, nyota xidig. Stop. Mawingu daruuryo, mwangaza iftiin, giza mugdi. Mwaka jana sanadka la soo dhaafay, last year. Mwaka ujao sanadka soo socdo. Mwezi ujao bisha soo socota ama bisha dambe, next month. Kaskazini north waqooyi. Kusini south yani koonfur. Mashariki east waxa way bari, meesha qoraxda ka soo baxdo bari. Magharibi west. Yumbani guriga, yumbani house ama guri. Sebuleni fadhiga. Chumba cha kulala qolka jiifka. Choo musqusha. Baafu musqusha qabiiska, musqul leh waa baafu. Meza miis. Sofa fadhi. Kiti kursi.
ama viti kuraasyo isla meeshii, runinga TV telefishin waa lahaa, pazia dah, rafu khaanad, taa nal ama jikada waxa yaala ku saabsan kijiko qaado, sufuria digsi, mikole waaye mid soorta lagu walaaqo, kikombe koob, fargeeto, kisu mindi, baaquli, sahani saxan, birika kirli ama jalmad, chuchiyo ama kichuchiyo waxaa la yiraahdaa shahmir, thermos waxa way darmuus, chupa ya chai waa lahaa, jagi waxaa la yiraahdaa garaafe, maji biyo, chumvi cusbo, mjani caleen, sukari sokor, mafuta saliid, unga bur, chupa dhalo, kikapu waxaa la yiraahdaa dambiil, basket yani baasha qadada ilmaha loogu qaado basket, jiko burjiko waa jikoni haddii ahaan la jikay noqon lahaa jikada caadi wax lagu shito, makaa dhuxul, blender waxaa la yiraahdaa makiinada wax lagu shito, kinu waxaa la yiraahdaa mooye, frigier. Mazungumzo wada sheekeysi, karibu sana, aad u soo dhawow, asante mahadsanid, naomba menu tafadhali, fadlan ii keen liiska cuntada, naomba waxaan ka codsanayaa siiso menu liiska cuntada tafadhali fadlan. Hii hapa menu, waa kana menu, leo mko na nini, maanta maxaad haysiin, leo tuna wali, maanta waxaan haynaa bariis, samaki, kalluun, mboga, khudaar, nataka wali na samaki, waxaan rabaa bariis iyo fish aan rabaa malay, utakunywa nini, maxaad cabaysaa, niletee maji baridi, ikan biyo qabow, unataka matunda baada ya chakula, ma doonaysaa fruits cuntada kadib, hapana asante, maya mahadsanid, chakula itakuwa tayari baada ya dakika 5, cuntada waxay noqonaysaa diyaar 5 daqiiqo kadib, sawa, harakisha, hay dhaqso. Mimi ni mgonjwa, ani waan xanuunsanahay, mimi ninaumwa kichwa, ani madaxa ay xanuunayo, mimi ninaumwa tumbo, ala soo gaabiya, waxay xanuunaysaa caloosha, ninaumwa tumbo, caloosha ay xanuunayso, ninaumwa magoti, jilbaha ay xanuunayo, ninaumwa mgongo, dhabarka ay xanuunayo, mgonjwa waa xanuun, mgonjwa ala akhrinaa, mgonjwa erayga kalaas dhikar waa adeegyahay, waa mgongo dhabar. Mimi ni mgonjwa, ani waxaan xanuunsanahay, ninaumwa kichwa, madaxa ay xanuunayo, ninaumwa tumbo, caloosha ay xanuunayso, ninaumwa kifua, xabadka ay xanuunayo, ninaumwa koo, qumanka ay xanuunayo ama qoorta ay xanuunayso, ninaumwa shingo, asagana waa jiraa, qoorta ay xanuunayso, qoorta oo dhan waa shingo, niko na misuli hapa, halkan muruq baa iga jiro ama halkan muruq baan ku leeyahay, niko na misuli hapa, misuli English ka timid, nina homa qandaan leeyahay, nina tapika waan matagayaa, nina baridi qabow waan leeyahay, niko na baridi waa dhigi kartaa, nina baridi waa dhigi kartaa, maxay labada waa isku macno, niko na joto kuleelaan leeyahay, nina joto kuleelaan leeyahay, joto waa kuleel, baridi waa qabow, opposite isku yihiin, homana waa qandhada laftirkeeda, tapikana waa matag. Kiswahili, kunja unguo, dharka laab, piga pasi unguo, dharka feere, dharka feere, geuza shati, shatiga gedi, anika unguo, dharka soo war, anua unguo, dharka soo deji, weka pex kwa nguo, dharka biinanka ku xirxir ama ku sursur. Usioshe na maji chafu, biyo wasaq leh ha ku dhaqin dharka. Mwaga maji chafu, biyo wasaqda leh daade. Anza na nguo yeupe, dharka cadcad ka bilow. Usioshe na burashi hijabu, hijaabka burash ha ku dhaqin. Osha na shampoo, shaamba ku dhaq. Tumia maji safi, isticmaal biyo nadiif leh. Inta ku cesho.
amse mazungumzo wada sheekeysi. Habari setahay, hii ni hoteli ya Bahari Lodge. Kanima hotelka Bahari Lodge ba. Ndio, karibu sana, aad usoo dhawow. Ungependa ma jeclaan lahayd chumba cha aina gani? Qol noocee ayaa jeclaan lahayd? Su'aal baa la weydiiyey. Naomba waxaan kaa codsanaya ama waxaan rabaa chumba chenye qol leh kitanda kimoja na bafu. Qol leh hal sariir iyo musqushiisa gudaha, bafu ndani, musqusha gudaha. Sawa, haye tuna chumba waan haynaa qol hicho kaas aad dalbatay kuwa shilingi 6,000 shilin kwa usiku halkii habeen. Sawa, haye tuna chumba hicho kwa shilingi 6,000 kwa usiku. Waan haynaa qol noocaasa 6,000 shilin habeenkii halkii habeen. Je, aan ku weydiiyo, munatoa ma bixisi kifungua kinywa quraac? Kifungua kinywa hala quraac, kiamsha kinywa na wala. Ndio, kifungua kinywa kimejumlishwa kwenye bei. Hiyo quraacda waxaa ku jirtaa beeca bixinaysa ku dhex jirta lacagta kale. Vizuri, hagaag sana. Vizuri sana, very good, aad u wanaagsan. Naweza kulipa, ma bixin karaa kwa pesa, lacag ma ku bixin karaa taslimu cash au kwa kadi, mise card baan ku bixin karaa. Unaweza kutumia njia yoyote, baa isticmaali kartaa labada wada mid ka rabto. يعني any method waa isticmaali kartaa, ama lacag ama cash, lacag ama card, zote ama yote tunakubali, kulligood waan aqbalnaa. Nashukuru, waan kaaga mahadnaqayaa. Naomba waxaan kaa codsanayaa kuona inaan arko chumba qolka kabla sijalipa, intaan lacagta bixinin ka hor. Hakuna shida, dhib ma lahan. Tafadhali njoo na mimi, fadlan ani isoo raac. Sawa, haye wakaas inta sirta dhigan. Sentence jumlado. Karibu hospitali, hospital kusoo dhawow. Waa marka reception ka fadhidid. Unahitaji musaada gani? Ama marka naas tahay ama kalkaalisa tahay. Unahitaji musaada gani? Caawimaad noocee u baahan tahay? Tafadhali kaa hapa, fadlan halkan fariiso. Jaza buuxi fomu hii formkan. Jaza fomu hii formkan buuxi. Una kadi ya hospitali. Una kadi ya hospitali. Ma haysaa kaarka hospitalka? Jina lako nani? Jina lako nani? Magaca, umri wako ni miaka ngapi? Da'daada waa meeqo? Unatoka wapi? Xagee ka timid? Su'aalahaas oo dhan weydii bukaanka. Umewahi kutibiwa hapa? Umewahi kutibiwa hapa kabla? Inta weli ma lagugu daweeyey hadda ka hor? Umewahi waa weligaa ma lagu daweeyey? Umewahi kutibiwa weligaa ma lagu daweeyey? Hapa halkan kabla ka hor? Halkan weligaa ma lagugu daweeyey hadda ka hor? Daktari yuko ndani. Daktari yuko ndani. Dhakhtarka gudaha ayuu ku jiraa. Utaitwa, waa lagu wici doonaa. Ngoja India, banaanka ku sug. Hii ni risiti yako. Hii ni risiti yako. Kani waa tigit, waa risiitkaagii ama kaarkii. Lipa kwa kaunti hiyo. Lipa kwa kaunti hiyo. Kauntigaas ku dir. Akauntigaas ku dir macnaha. Tumia kitambulisho chako. Tumia kitambulisho chako. Isticmaal kibandahaaga. Umeleta kadi. Kaarkii ma keentay? hadday gabar uu tahay waxaa leedahay umeeleta kitabu buuggii ma keentay, umeeleta kaarkii ma keentay. Usijali, hawelwelin, tutakusaidia, waa ku caawin doonaa. Daktari, dhakhtarka anakuja sasa, hadduu imaanaya. Tafadhali subiri kidogo, fadlan wax yar sug. Ingia ofisini mwa daktari. Ingia ofisini mwa daktari. Gal xafiiska dhakhtarka. Ingia waa gal ofisini xafiiska mwa daktari dhakhtarka. Unaweza kukaa hapa. Unaweza kukaa hapa, halkan waa fariisan kartaa. Qaybta labaad, je una maumivu gani? Je una maumivu gani? Aan ku weydiiyo xanuun noocee ku hayo? Xanuunkee ku hayo? Umepewa dawa? Dawa ma lagu siiyey? Umepewa dawa? Dawa ma lagu siiyey? Umeandikiwa dawa? Dawa ma lagu qoray? Hapa ni sehemu ya malipo. Halkan waa meesha lagu bixinayay lacagta. Hapa ni sehemu, halkan waa qaybtii ya malipo lagu bixinayay lacag bixinta. Sehemu waxaa la qayb. Nambari yako ni ngapi? Nambarkaaga waa meeqo? Nambarkaaga waa kee? Meeqo weeye? Qofka nambar baa la siiyaa lagu sugaa. Utapokelewa muda mfupi. Utapokelewa muda mfupi. Waa lagu qaabili doonaa muddo yar. Karibu tena wakati mwingine. Karibu tena wakati mwingine. Waqti kala soo dhawow. Tunashukuru kwa kuja hospitali yetu. Tunashukuru kwa kuja hospitali yetu. Wakuma asante na hospitalkeena imaato. Pole na maradhi. Pole na maradhi. Karaali noqo xanuunkaaga. Maradhi waxaa la cudur ama xanuun. Si jumlado, ninataka chumba cha kulala ama ninataka chumba cha kulala. Waxaan rabaa qol aan saxdo.
nataka chumba cha watu wawili, waxaan rabaa qol laba qofooda. Je, muna vyumba vya wazi leo? Je, aan ku weydiiyo muna ma haysiin? Munadaas waa jamac, una marka adii keligaa tahawa. Muna vyumba vya wazi leo, ma haysiin qolal banaan maanta. Nataka chumba chenye bafu ndani, waxaan rabaa qol gudaha ku leh musqul. Nataka waxaan rabaa chumba qol chenye leh ama qabo bafu ndani, musqul gudaha ah. Tafadhali nataka kuona chumba kwanza, marka hore waxaan rabaa inaan arko qolka. Tafadhali fadlan nataka waxaan rabaa kuona inaan arko chumba qolka kwanza marka hore. Nataka kufanya booking, waxaan rabaa inaan sameeyo booking wax la yiraahdo kuwa siku 3-3 maalin macnaha inaan qabsadaan rabaa. Je, munapokea malipo kwa mpesa au pesa taslimu? aan ku weydiiyo ma aqbashin ama ma qaadatiin lacag bixin oo mpesa ah ama lacag cash ah. Munapokea, do you receive, do you get, ma qaadatiin malipo lacag bixina kwa mpesa ahaan au pesa taslimu mse cash. Je, kifunguo kinywa kimejumlishwa kwenye bei? aan ku weydiiyo quraacda waxay ku jirtaa beeca. Nataka funguo za chumba changu, waxaan rabaa furaha qolkayga. Nataka waxaan rabaa funguo furaha sa chumba changu qolkayga. Funguo waxaa la furaha ama kifunguo furaha sa chumba changu qolkayga. Ninaondoka kesho asubuhi, waxaan baxayaa biri subaxdii. Asante kwa huduma nzuri, waa kuma asante adeegaaga fiican. Je, kuna wifi hapa hotelini? aan ku weydiiyo halkan wifi ma leeyahay hoteela. Nataka taulo safi tafadhali, waxaan rabaa shukumaan nadiifa fadlan. Chumba changu ni namba gani? qolkayga waa nambarkee? Utafanya kazi, waxaad ii samayn doontaa shaqo. Nataka utengeneze meza, waxaan rabaa inay ii hagaajiso miis. Nataka utengeneze sakafu, waxaan rabaa inaad dhulka ii hagaajiso mismidka. Kazi si yangu, shaqadu aniga malihi, nisaidia icaabi. Unatengeneza ngapi? meeqa igu hagaajinaysaa? Kuja na musmari na yundo. Kuja musmari na yundo, la imo musmari iyo buris. Naadaan iska tiri ah. Kuja musmari na yundo, la imo musmari iyo buris. Utaweka ukuta, derbiga ayaad saari doontaa ama ku dhijin doontaa. Utatengeneza mlango, albaabka hagaajin doontaa. Dirisha iyo daaqada, chuma iyo birta. Dakhtar mazungumzo, wada sheekeysi. Habari yako leo, maanta sidee tahay? Nzuri kidogo, waa fiicnahay daktari. Dakhtar, nimekuja kwa sababu, waxaan u imid sababtoo ah ninahisi kizunguzungu, waxaan dareemayaa wareer. Ulianza lini kuhisi kizunguzungu? goormee kugu bilaabatay inaad dareento wareer? Kizunguzungu wareer waa. Nilianza jana jioni, shalay galabaan bilaabay. baada ya kazi, shaqada kadib. Sawa haye, hebu kuja balkale nikupime shingizo la damu, aan ka cabire pressure kama dhiig cadaadis. Sawa daktari. Hai dakhtar, pressure yako iko juu kidogo, pressure kaaga uu sareeyaa wax yar. Unasikia maumivu ya kichwa, madax xanuun ma dareemaysaa? Ndio, kichwa kinaniuma sana, madaxa ay xanuunaya asubuhi subaxdii. Umekula kitu leo? maanta wax ma cuntay? Hapana, maya, nilikunywa chai tu, shaha cabe. wax yar kaadiya, wax yar. Sawa haye, nitakuchunguza wa kubari doonaa kidogo, wax yar. Fungua kinywa, afka kala fur. Toa ulimi, carabka soo saar. Sawa haye daktari. Dakhtar, pumua ndani, gudaha neef qaado. Sasa toa pumzi pole pole, hata tartiib neefta u soo saar, macna neefso. Simama kwa miisaanka ku istaag. maneno mapya, area cusub, shingizo la damu, dhiiga cadaadiska, yani pressureka, kizunguzungu, wareer. Safisha choo, safisha nadhifi choo musqusha. Safisha choo musqusha nadhifi. Safisha wa clean choo musqusha nadhifi ama clean gare. Osha viatu, kabaha dhaq. Osha waa dhaq, mar labada aragne. Viatu kabo. Panguza chini ya carpet, roga hoostiisa tirtir. Panguza tirtir chini ya carpet, roga hoostiisa. Panguza tirtir chini ya kitanda, sariirta hoosteeda. Panguza tirtir chini ya kitanda, sariirta hoosteeda. Panguza masax ama tirtir chini ya sink. Panguza tirtir chini ya sink, sinkiga hoostiisa tirtir. Sink waa meesha weelasha lagu dhaqo, hoosteeda ma aha korkeeda, hoosteeda marka la soo furo qaanada. Utafanya kazi ngapi?
utafanya kazi ngapi? Meeqaad ugu shaqaynaysaa? Naag shaqaale sida loola heshiiyo. Mimi ninataka mtu mzuri. Mimi ninataka mtu mzuri. Ani waxaan rabaa qof fiican. Utakuja asubuhi saa 2. Utakuja asubuhi saa 2. Waxaad imaan doontaa 2 saac subaxnimo. Utakuja waxaad imaan doontaa asubuhi subaxdii saa 2 2 saac subaxnimo. Unaosha vyombo, choo, nyumba na jikoni. Unaosha waxaad dhaqi doontaa vyombo, alaabta, choo, musqusha, nyumba, guriga na jikoni, jikada. Unaosha nguo kwa wiki moja. Unaosha nguo kwa wiki moja. Dharka waxaad dhaqi doontaa isbuuci. Ha ufanyi ma samayn doontid kazi mingi, shaqo badan. Hupiki ma karin doontid chakula, cunto. Unakunja kunja nguo, dharka laablaabi doontaa.